بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما هذا إلهي با إسكالي أفيانكي ويدين عور باهنتا إبلا هبر قدير نبضون عبد القادر محمد حسن وي وحان ربا هذا اليرو كوبان إنان كايرا هذو حيصد علااديات وكتشرته ديغانو هوسي مادا دقمدا بحضو دولة قبليت كالمدو waxaa wararku igu soo gaarayaan in kooxihii argagixisada ahaa ee jidiya jihadiidka ahaa ay ciidamo fara badan keeneen deegaano u dhow ama hoos yimaada deegaanka qaayib oo asna hoos yimaada degmada baxdo sida baalaldheer hingaduud shilinta iyo meelo badan waxaan rabaa fariin adag inaan u diro dadka deegaanka midna aan u diro argagixisada midna inaan ugu hambaliyayaan rabaa ciidamada gaarka ah ee culumma awdiinka ahlu sunna wal jamaa ama culumada degmada baxdo guutadooda la yiraahdo dayax guutada ciidamada macawisleyda ee deegaanka ee beesha reer xaaji saleebaan ay iyaguna leeyihiin ee la yiraahdo gantaal iyo guutada daraawiishta ee degan degmada cadakibir ee loogu magac daray halyeygii weynaa shiraac yahay waxaan ku hormarahayaa argagixisada waxaan leeyahay wuxuu yiri ninkii shuxshuxley bahgari waa wixii sheema weeraray ee sharba idinma hayseen haddaad shalana dhaaftaan sanad guuradii weeye laydinka tumi jiray 108 baxda markaad uga soo tagtay sanad guuradeedii la marhayaa soo soco siraaday anna waa ku sugayaa waxaa kaa soo horeeya wiilal 15 jir qoriga ku qaaday maantana sana konton galay weligoodna aan gacanta taagan wallaahi billaahi tallaahi wiil 40 jir gacanta ku tuugsada iyo mid aan dalka kale aqoon oo aan muslin ahayn oo buuriyadu ka lulato ka yimid dalka Hindiya iyo dalka Bangladesh iyo dalka Kosovo iyo Namibia iyo Afghanistan wallaahi billaahi tallaahi inuu saxba ka qaadi kari niman isku kalsoon oo ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaana oo caqiidadoodu tahay ahlu sunna wal jamaa oo geerida ogol weeye nimanka waana cirib tirkiiniw saleebaan dhufays iyo magalo dhagaxyo hoostooda kol haduu dhagruursado walle dhididka geylaansho kol haduu dharaarsado walle dhib iyo hawl keenye markii la lahaa argagixisan la usadiri mayno ogow beela Soomaaliyeed weeye waxa magacaas uga baxay niman aan nin xal ahayn oo geerida yaqaana oo 200 meeshay uga dhimato saacad gudahood dib u qabsada oo dib u gorasho xeel dagaal yaqaana oo awowgis dagaal lagu dilay oo awowgis kala dagaal lagu dilay oo abkowgis kala dagaal lagu dilay way nimanka meesha fadhiya saddex magaco igu ilaahay kuwa aan malakumoodka ka cabsoon baa meesha jooga ma garatay daralaan ku noolaan jiriya duul la weeraraya gurigayga waa uga dadhaa daaya nabadeed tugtugtaad u jeediina waa labadii duulaan horta nimanka aad u soo socotay waa nimankaas argagixisoy waxaa ballan iyo axdiya idan idinku dhacdo garkii baan qaadi waayey waxbaa baallaha iga yaacay wadaadaa igu biqleeyey gantaal baa ibuuranaysa inay idinku dhacdaa ballan iyo axdi baan ku iri waxaad ka heshiinaad leedihiin waa idin sugaynaa soomaada garan waxaan leeyahay dadka deegaanka ma qarinahayo waa magacaabahaya beesha degan xiin dheer ee deriska nala ah hasho ayadaa cunaysu yiri cabaadaysana hadda ka hor kilib aan duubayna qayladhaanad ka keenteen dulmi lama rabo inaad markii argagixisad la dilo oo argagixisadu inta nagu soo duusho aan iska dhicina aad tiraahdiin ina mayo u ahaa fartuunkiisa dheeraad dhashay barni orodooyaa dhashay maxamuud hebelaa la yidhaa ina kacan weynaa la yidhaa ina daan buusaa la yidhaa aad tiraahdiin oo aad shirar jiraa'id qabatiin marka kalena annaga xaggiinna nala kaga soo duulo walaalayaalow idinma wada kala naqaano argagixisadu 4 oo faniina ah iyo koofi xun oo halkaan ugu xiran iyo kaba xun oo gadaal ka xiran leeyahay adinkuna intiyaad wadatiin idinma kala naqaan meesha la iga soo duulahayaana waa deegaankaaga walaalow dhiigaagana ma rabo dagaal sokeeyana uma socdee allaha duu yahay deegaankaaga yaa la iga soo duuli allaha duu yahay deegaankaaga nabadgelyo aan ka helo deegaankayga lagaagama soo duulee deegaankaaga yaa la iga soo duuli haddii deegaankaaga fariisin cadowgu ka dhigto ee la iiga soo duulo adkaysigeeda lahow markaan ruqaansado ha qaylinina
meel kasta oo cadowgu aniga iiga soo duulo meel kasta oo cadowgu isku aruursado aniga duulaanka igu wallahi billahi tala waa gaarayaan guutooyinkan waa gaarayaan ina mayow aha iyo ina buulayo aha iyo ina geeso dheeru ahaana saddex magaco igu ilaahay raaxaji Saleemaan soo jeestay inaysan ku qancin mahayaan ugu wallahi marka waxaan idin leeyahay dib isugu noqda deegaankaaga seef ka dhig duulaan kuma ii deegaana degan tahay dhul ballaarsin maahi dhul midka ilaahay isiiya igu filan oo aan deganahay aniga afka xeebta hobyo iyo afka xeebta xaraf dheere iyo afka halka loo yaqaan galaadi iyo daacdheer ayaan anigu saas u goglana oo aan hal qoys ii dhaxayn 3,000 kilomitir aan deganahay aniga kaligayo marka raaxaji Saleemaan habar gidigta kale iska daa kaligay 3,000 kilomitir oo seef aan degana oo isku rogrog ah Soomaaliya garan nin deegaan u socdana maahi nin deegaan ka maqan yahana maahi laakiin saakay ciidanka fadhiya baalaldeer iyo shilanta fadhiya ee aniga dhiig naftayda iyo maalkayga u socdo magaca bari u bixin rabtaa maxay yihiin markii guutada culumada degmada baxdo dayax iyo guutada gantaal markay ku cibaadaystaan barina war kale yaa laga maqli Soomaaliya marqaati ka ahaad ogaada waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo guutada ciidamada daraawiishta guutada 2 sano iyo ka badan fadhisa halka loo yaqaano degmada Cadakibir guutadaas horta waxay ka tirsan yihiin daraawiishta Galmudug waa ciidamo si gaar u tababaran adigu inta hadda la xaqiijiyay ku dhawaad 40 baabuur oo kuwa dagaalka ay ku qalabaysan yihiin ciidamaduna dhowr kun kaba yara sida la sheegay anigu ma aanan tagin laakiin ilaa xogogaal ii sheegeen niman saraakiil oo halkaas waxaan fadhiya aan dhaqaaqin ma dhaqaaqaan guutadaas waxa loogu magac daray sida la ii sheegay oo la yiraahdaa guutada sharciyahay nin adag oo geesi ah oo nabadoon habar gidir ah oo nabadoon raaxaji Saleemaan ah oo soo halgamay ayaa loogu magac daray guutada sharciyahay